الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. النبي محمد صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أعماش حجك عمرة إيقاقات عبادة ساد أوجدن لهيدين إيقابرته النبي صلى الله عليه وسلم حجك عمرة waxa ugu horeey laga hadlayo waxa weeye intuu saruuxu xajka xidhanin ama umrada xidhanin dhar gooniyo xidhanaya raggu dharkii jidhka xubnihiisa lagu tolay ama jidhka qayb ka mid ah dabooleen ama kulligii hawada dabooleene waa inay iska bixiyaan oo ninku siibo oo go iyo hoos gunti labada gooy midna hoos laga guntanayo midna kor laga huwanayo labadaas oo xidhanaya kabaha waxa loo ogol yahay wixii aanqowga ka hooseeya kaba aanqowga daboolaya looma ogola waxa kale to intuu san xidhanin xajka iyo umrada loo baahan yahay inuu madaxiisa ka qaado wax kasta oo madaxa saaran ama madaxa lagu daboolo sida koofiyadaha cimaamadaha iyo wixii la mid ah taasi waa ragga wixii madaxa ka baxsan oo ka koreeyo madaxu uu harsanayo sida dalladoo kale meel dhismaha sanqaafkeedoo kale baabuuraad ku jirto kale taas ma ah waxa la diidayo waa wax madaxa saaran waay oo ku dhagan raggeena khaas ku tahay dumarku kuma jiraan dumarka iyagu waxay xajka iyo umrada ku xidhanayaan labiskoodii ay magaalada ku joogeen waxba iska furi maayaan maracad iyo loo baahan inay qaataan daruuri qasab maaha xijaabkoodii caadiga ah iyo asturkoodii bay ku xidhanayaan kaliya waxay iska siibayaan oo loo ogolayn niqaabka ama indhashareerka wajiga ku dhagan iyo gacmo geliska gacmaha lagu asturay gacmaha la gashado labadaasaan iyaga loo ogolayn marka ruuxu uu xidhanayo xajka iyo umrada intuusan wali xidhanin waxaa sunnaa inuu qabaysto xataa hadday tahay haweeney caado qabto ama mid dhiiggii dhalmada qabto ixraamka ruuxu wuxuu xidhan karaa intuusan gaadhin meeshii xajka iyo umrada laga xidhanayay wuxuu gurigiisuu ka soo xidhan karaa labada go' gurigiisuu ka soo xidhan karaa waana sidii nabigeennu sameeyey sal alla alayh wasalam saxaabaduna sameeyeen oo madiine markay ka soo ambabaxayeen ayay labada go' soo xidheen xajkana waxay ka xidheen ama umrada ka xidheen meesha la yidhaahdo dulxulayfa haddaad xidhato oo aad labayka xajan dhado ama labayka cumra aad tidhaahdo markaa xaaraan buu noqonaya waxyaalaha udgo sacuudiga marka la galo magaalada jidda wax yar loo jiro halkaas meel ka mida oo la yalamlam la yidhahdaan annaga ka xarmanaa xajku waa dhowr nooc 3 nooc waa nooceed rabtaa inaad gudato nooca hore waxa weeye ifraad baa la yidhahdaa xaj kaliya inaad ku tala gashanta markaad marayso meeshii laga xidhanayay waad xidhanoo waxaad leedahay labayk allaahumma xajan nooca labaadii wax weeyaan qiraan baa la yidhaahdaayo waxaad rabtaa xajkii iyo umradii acmaashoodii inaad isdhex geliso oo wixii la samayn lahaa xaj gooniya iyo umro gooniya inaad kala samayso ma rabtide xaj iyo umro isku dhex jiraad rabtaa isku acmaala inaad samayso qiraan baa la yidhaahdaa noocaana marka la xidhanayo waxaa la yidhaahdaa labayk allaahumma xajan wa cumra alla waxaan la imid oon kuugu imid xaj iyo cumro inaan guto nooca saddexaad waa nooca tamatuca la yidhaahdo oo waxa weeyaan cumro horeysa oo xajkaaga ka horeysa oo xajka ka madax bannaan ayaad gudanaysa cumradii baad xidhanaysaa waxaad leedahay labayk allaahumma cumra allo cumraan xidhay cumrada markaad xidhato طبعا acmaasha cumrada dhex gali doontaa xajna waxaad xidhan doontaa maalinka sideedaad baad xidhan doontaa oo xidhasho madax bannaan iyo xaj madax bannaan waa kala madax bannaan labada camal
tamatuc marka waa nooca ugu fadli badan xayl nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa uu amray markii ay sameyn waayeen oo qaar kamid ah xoogaa ka yara cagjiideen nabiga sallallahu alayhi wasallam waa cadhooday wuxuuna sheegay xajkii umrada in la isdhex galiyay markaad xidhanayso xaj ha noqdo ama umra ha noqdee waxaa ku banaan hadaad ka baqayso ama inaad jirato ama in lagu xidho ama in lagu soo celiyo wuxuun inay ku hor istaagaan hadaad ka baqayso waxaa ku banaan inaad xajkaaga sharti ku xidhato oo aad tiraahdo allahumma mahilli haythu habastani aw habasani habis allah meeshan ku xalaaloobayo waa meeshaad igu celiso hadaad markaa jirato aad iska soo noqon hadii lagu xidho waad iska soo noqon hadii cadow ku hor istaago waad iska soo noqon kuguma laazimayo marka inaad sanadka inaad xajka noocaas mar labaad soo celiso dhiigna kugu laazimayo waxyaalo badan baad kaga baxsan السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم